السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن، عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير مسلمين تميلوا الباجوكتان. وحان إذن الله هاي فرحتكم عيدة عيدا بشبش إيه برارة الله نو جارسيو. وحاكلوا رعسينا magaalada Munshin masaajida laga gaday rabaa haduu Ilaahay karaali noqdo dhalinyartu waxa la rabaa in iska shadaan qof walba wuxuu awoodo inuu bixiyo adduunku waxa ugu wanaagsan ina wax sadaqeysatid meesha ugu wanaagsan oo ku bixi kartid waa masaajidka insha Allah billahi kariim intaasaan idin kula dardaarma waxaan kaloo leeyahay dhalinyarta Munshin aada u salaamantihiin Yuusuf oo asigana kamid ah howlwaneedada waxa leeyahay cid wanaagsan تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام وفاز كل من صلى وصام فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى فجئت يا عيد بالخير والبشرى. السلام عليكم. عيد وناكسن بالله سجود أمة الصوماليات يكون إسلامك سيجارة وحالها عيد وناكسن أهلي أصحابي والدي والألب إن شاء الله سنة كان سنة كي عيد ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. عيد وناكسن. نحن وجينا إسلام كودن عيد وناكسن. كل عام وأنتم بخير. عيد إلهي عافماد نبعان وكرسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan idin leeyahay ciid mubaarak inkastoo meeshan aan kula ciideyn familkayga waxaan aad ula ciidayaa asxaabtayda magaalada Munshin waxaa jirto arin aad muhiim u ah magaalada Munshin sida wada ogtihiin waxa laga dhisayaa masaajid dhalinyarada waxaan u sheegayaa in masaajidka wax la sadaqaysto waxa ugu muhiimsan in masaajid lacag ku bixiso macnaha masaajid maalkaaga aad geliso sababtoo ah mar walba lagu tukado masaajidkaas waxa ku socda ajir maalinta dhimata xataa maalinta dhimata kadib xitaa waxa ku socda ajir marka dhalinyarada Munshin waxa leeyahay in masaajidkaas ay ka qayb qaataan dhismihiisa ee maalkooda xoolaha ku bixiyaan oo ay ku sadaqaystaan waa maasantiin ciid mubaarak